وحلا سعانود كتاغن إن كما قرصونا إن كما نفوقا waxa ay ku dhacayaan waa dad Soomaaliyeed oo aan waxba dambi ah geysan cid geysanaysa waa cid Soomaaliyeed ama waa maamul Soomaaliyeed oo dulmi u socda oo doonaya walaalihiis inuu qamciyo oo walaalihiis u awood sheegto oo dhiigooda uu galo dhibaatooyinka nagu dhacay maxay ka mid ah shaahidu zuur baa la wada noqday haddii la yiraahdo war hal laga hadlo waxa kan waxa lagu leeyahay qole heblaaya xanaaqaysa ama maamul hebel baa caroonaya markaas xuquuqdii oo dhan baa zuushay markaas aan kulligeen bilaa xuquuq noqonay oo haddii qole heblaayo oo dhaalimiina ay xanaaqaan ma ilaahay baa carooday subhanahu wa ta'ala aaway xadiisi nabiga sallallahu wa sallam alayhi oo dhulmiga in la iska qabta aha aaway xadiisi qudsigi ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu adoomadaydo ظلمiga aniga waan iska xaaraantinimeeyay dhaxdiinana xaaraan baan ka dhigay ha is dulminina ilmaha la baabiinayo ee saqiirnimada lagu dilayo guryaha la duminayo masaajida la burburinayo iskuulada la burburinayo suuqyada madaafiicda la dhacayo yay ka baabaayaan islaamnagay naga baabaahayaan boqonta ninkii isku dhufta isaga u dhutiya عدو إسلامي سودولي أنت كبدر ما سميان لكن مشكلة هو محي وكي جعل كاها ولا الربيع دبر كاجيلو استاجه متكسدة كوجل هي وكي ولا كاها وأتجرب صلى هيد متكسدة كوجل هي ومتك الشريط ولا كوية هي واللي الدلمية واللي يحسوق ديارات بهرجيسة كعدي هرجيسة يدقيسي بأنتو سوقات المدافع وسنعدو كل دفاعين بولاليه كباب إنها هي مقالة نبض آمنة أولي بدقالذي سكية كبد بعدي أيو لدعيا وعرور يضمر يوايل يشيوخ أن لو كلا أبي يليدين ضدك دمنا يك دمنا يان والله برنا مقن لبض الضرف با أمر كقلدن يوكو يهي دنبي نك صوصاري مدحوينها ماشكا إيه أنت كرر اللي دعه إيه أنت قلبي كلا جرته نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه إذا عملت الخطيئة في الأرض حديث أبي داود حدي أرلد الدنب اللي سميه كان من شهدها وأنكرها كمن غاب عنها قفكي قوب جوج أو إنكرا أو ديدا أو يرى هذا وروح سما بنانا وحول لم يديه إنه سلميشا جوجين ما لذا جوجين دنب كما قال كرتت ومن غاب عنها ورضي بها كان كمن شهدها أو كما قال صلى الله عليه وسلم قفكي كم مقن وقلبك كتاغيرة بقى ريب البلالاي بقى ولا الدقي بقى ما أنت بيئن بلا لدعي بقى شلته له بيئن لا لدعي أنت ساكلمتي أنت ساكم مقعيس يودي وحوا وذا هلقو يسوي ولا ليا عدة وحا هلين يسنة وكاني قلدناوي عدة وحا خربة يسا والظالم كلا ربيع عنتي سيران قبنه أو النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه انصر أخاك ظالما أو مظلوما ولا الكاء قرقار أما الظالم هالنقطة أما هلقا قردر هذا مركو الظالم يهي مركو لا قردر يهي قرنا الظالم ككور مركو يهي قعنتي صار قبنا يا أبوير وردبها الدين لير هذا ما أفكا قبنا هيا مصبحي والدنبيله الدين لير هذا ما أفكا قبنا هيا ما إلهي بأن لقى فوقانا يا قتل بو سمينيا هدي لا يراهدو ما الله laga fogaanaya maya cida amarka ku bixinayso umada inay isku baabado alla agtiisa iyo aadanaha hortooda isaga dambiga iska leh isaga laga xisaabtamaya dhiiga umada Soomaaliyeed waa macsuub waa muslimiin kuwa in la soo siiyo amar qaldan oo walaalahood lagu dilo ayaguna ay dhintaan kuwa kalena kuwa la dilay ay noqdaan oo difaac ay galaan oo keebla yuur ay noqdaan arrinkaas oo arrin bixinaya ma aha maxaan shabaab kula dagaalamaynay maxaan kula ugu diidaynay inay diinta intay noo soo huwadaan inay dadka dulmiyaan maxaan ugu kacaynay maxaa shacabka inay iska dhiciyaan aan ugu baaqaynay haddaan waxaas kale raalli ku noqonayno waa waxba maxaa meesha yaala way dhamaatay xilligii dadka kan inta loo soo qaato shaatiyaal aan la lahayn lagu dhibaatayn lahaa shaati maamul ninkii waa soo baxaya ummadda inuu isaga leeyahay oo kale
ciidamo dhibaataysan oo la siiyey lacag oo aan ka maarmin ba amar la siinaya waxa leeyahay amarku waa furin qofkii diidana waa la dilayaa waa baxayaa cagtay waxay marinayaan magaalada nabada war waxaas diin ma aha ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard فكأنما قتل الناس جميعا قفكي نفدلا سحق دراء أما أيضا فساد آنا سمين وحول لمديه آذانها يسوى وذلايي حديث النبي محمد صلوات الله والسلام عليه لزوال الدنيا أهون على الله أهون عند الله من قتل رجل واحد مسلم بغير حق الدون كل وايو با الله أقفضت إن قف مسلم سحق دراء اللي قدره كعبدي با كجرته waxa ku jira masjid an-nabawi makaya madiina ku jirta oo la waayo hal qof oo muslim oo xaq daran lagu dilaa ka daran inta la siyaasadeeyo in la yiraahdo maamul baa laga baxay xagaas la yeelay war Soomaaliya waa hal dal dadkeedu waa hal dad ninkii hunguri ka dhaxdoonaya maamul dariiqo kale oo umar ha raadsado oo aanan ahayn dhiiga ummadu Muhammad sallallahu alayhi wasallam nin laga yeelay ma jirto inuu dadka aabi ula yimaado nin laga yeelay ma jirto inuu ku banaysto wuxuusan ilaahay banaynin ama magac diineed ama magac dawladeed ama magac kale dadku waxay leeyihiin dad nuqaba dad matalay leeyihiin Soomaaliya waa wada qabiil maanta waxay taagan tahay dhaalim iyo madluum hadduu dagaalku sii socdo fitnu isu bedelaya hiil baa imanaya qabaa'il kala soo galaya oo dagaalka ku jirin laba reer oo isdifaacayo oo madaafiic isu isticmaalaya waxay ummadaha kale isaga difaaci lahaayeen baa imaanaysa بلد دامن لقبتay leedahay daba la qabto malahan baa la yiri bala aan daba la qabta aan lahayn baa ka dhalanaysa hadii dagaalku uu si waasico oo si fogaado oo reer la isu dilo oo magaalada lagu dagaalamayo aan ahayn uu gaaro oo xasuuq uu tirabeel noqdo yaa khasaare qaba waxa khasaare waa inaga meesha waxa jooga waa wada khaasiriin guulaysta iyo laga guulaysta ma yaalo dulmi iyo dulmana jooga dulmiga in meesha laga saaro weeye dadkana waa walaale ee lagu soo celiyo wixii ilaahay uu amray subhanahu wa ta'ala oo muxuu yahay fattaqullaha wa aslihu dhaata baynakum ilaahay ka baqa dhexdiina islaahiya waxa laga doodayo ma hadii laga baxay waxa laga doodayo waa sadbursi iyo dhul ballaarsi iyo maamul cishi iyo sharaf ilaashi inta ummadda nabi maxamed oo baabi karta sallallahu wa sallam alayhi talabooyinkii la qaaday dadkii gurmaday jazaahumullahu khayran laakiin makaafi baa maya ظلمiga noocaasa marka la fiiriyo caaqibadiisa inta badan waa halaag ilaahay subhanahu wa ta'ala aayad dhulmi kuma sheegin ilaa haduu sheego halaag buu daba dhigay wa tilka alqura ahlaknaahum goorma lamma zalamu wa degmooyin aanu halaagnay goorma lamma zalamu markay dhulmi la yimaadeen baa ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala markii hargeysa la garaacahay oo shacabka la burburinahay oo xumaato walba lagu sameeyay ninna ma dhaadaynin sidan bay wax isu bedeli doonaan laakiin ilaahay muxuu qadaray subhanahu wa ta'ala in wixii oo dhan la wada waayo in maanta la waayo hargeyso Soomaalidan ugu ma jirto in la waayo burco Soomaalidan ugu ma jirto in la waayo laascaanood Soomaalidan ugu ma jirto hal magaalo la waayo culayskeeda Soomaali maanta ma xambaari karto waxaan u baahanahay intay bahashu af leedahay in laga gaaro ahlul hal wal aqdigu inaanay ku aamusin waxyaabahan la samaystay ee beenta iyo zuurka iyo buutaanka oo ilaahay uu san xaq aanu ka dhigin dalkan waa hal dal kala goyntiisana ma banaana in waxa weeye inta maamul uu isagu qadrasiyo qoof ku dhaco dadka uu qamciyaan banaanayn dadka in la kala irdheeyaan banaanayn uqdadii cunsuriya dadka in la kala geliyaan banaanayn wixii qofku uu xal isagu u waayo xal waxa uu hayo walaalihiisa kale talada in dadka dhaxdooda la soo dhigo hadii odayaashii beesha joogay ay yiraahdeen wixii aad rabteen maan rabnaa gooni baan isu taagaynaa jawaabtu ma aha in madaafiic la dhaco jawaabtu ma aha waan idin qasbaynaa jawaabtu waxa ay tahay wada xaajood iyo wada hadal dagaalka ha joogsado oo ahlul cilmigu ha ka hadlaan oo odayaashu ha ka hadlaan oo waxa yaan la qabyaaladaynin oo yaan la siyaasadaynin oo waxa kan waa wax gurigeena imaanahaya yaanan isku fiirsanin oo maalinta ay furan tahay kelmad in la yiraahdo yaan kelmadda looga baqin wax kale nabigu wuxuu leeyahay sallallahu wa sallam alayhi ala la yamna'anna rajulan an yaqula kalimat alhaqq idha ra'ahu aw shahidahu fa innahu la yuqarribu min ajalin wala yuba'idu min rizq wuxuu yiri qofna yaanu uga baqin kelmad xaqa oo arkay ama marxaati ka noqday inuu yiraahdo ala la yamna'anna rajulan makhafata an-nas dadka baqdin uu ka baqahayo
yuusan yani uga istaagin inuu kelmadda xaqa sheego ee kelmadda xaqaha sheego maxaa yeelay geeri ma soo dhawaynayso inaad xaq sheegto risqi aad heli lahaydna kaama dibdhigayso waxaynu u baahannahay maanta inaynu dhahno dhiigga dadkeennu waa xaaraam qof dhiiggiisa la daadin karana ma jiro waana lambar naga maqan ciddii doonaysa inay maksab ku raadisana ciddaasaa qabasho u baahanay ha laga hortago wasala allahuma wasalla wabaarak calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi ajmaciin